soo dhawaada daawadayaal waqti kastoo idin tahayba wanaagsan. Muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa qodobo muhiim ah oo ku saabsan doorashada Mareykanka. Waxaan isku dayayaa inaan yara cadeeyo saddex qodob oo kaliya ah. Muuqaalkan wuxuu ka hadli doonaa saddexda qodob oo kala ah. Dowladda qotada dheer ama waxa loo yaqaan deep state waxay yihiin labo farqiga u dhaxeeya Trump iyo Kamala gaar ahaan arrimaha dagaalada dunida ka socda. Iyo qodobka ugu dambeeya ah qaabka Mareykanka looga codayo. Oo oran karo waa qaab kala duwan nidaamka dimuqraadiga ee dowladaha dimuqraadiga caalamka kale looga codayo. barnaamijku waxay socodsiinayaan aniga Cabdiraxmaan Fixirsi halkan waa ogo maanta fadlan dad cusub tahay nagu soo bilaado subscribe taabanaya soo kale barnaamijka haduu ku cajab galay like garay soo gaadho aqaar kale oo badan. kowdii bishii January 2023 ilaa kowdii bishii Afraad ee sanadkan waxa la qiyaasay in Trump soo hadal qaaday ereyga deep state ama dowladda qotada dheer ama waxa loo yaqaan dowlad camiiqa in ku dhow 6 jeer ama mar. arrinkan waxa keenay in la isweydiiyo deep state wuxuu ka wado. Haddaba maxaa laga wadaa deep state? Waa su'aal muhiim ah. Si kooban waa dowlad ku dhex jirta. Taasoo ka dhigan in shakhsiyaadka dowladda hor jooga sida madaxweynaha, baarlamaanka iyo maxkamaduhuba aanay ahayn kuwa dhabta ah ee dowladda maamula, balse kaliya tahay maqaar saar yihiin. Si kale waxayna hor joogaa madaxda aynu daawanay TV-yada ka soo muuqda waxay daah u yihiin mulkiilayaasha dhabta ah ee dowladdaas. Haddaba weydiintu waxay tahay arrinkan ma ka jira Mareykanka? Waayo Mareykanka marka la yiraahdo waa meel markii maskaxda ku soo dhacayso horumar, xorriyad iyo barwaaqo sooran. Warcilinta weydiintaasna waxay tahay nolosha shacabka Mareykanka haday noqoto dhinaca maaliyadda, dhaqaalaha, amniga, waxa saameyn xoog leh ku leh oo jangooya afar qof ama afar kooxood. kow agaasimaha sirdoonka Mareykanka CIA, agaasimaha xafiiska baarista federaalka FBI, agaasimaha hay'adda amniga qaranka NSA, agaasimaha bankiga dhexe ee Mareykanka oo loo yaqaano Federal Reserve. shacabka Mareykanku ma awoodaan inay 40 qof doortaan. badankana waxa soo doortay hay'adda lafteeda. balse madaxweynuhu qalinka ayuu mariyaa golaha sanadkuna ama golaha sarena uu ansixiyaa si baasha loo yaro qurxiyo. taasna waxa cadeyn u ah in mararka qaar kood aanu xitaa madaxweynuhu xakameyn karin qolyaha ay soo sheegnay. taasna waa uu saamaxday in Mareykanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay saameyn ku yeeshaan. waxaana cadeyn u ah inay yihiin hay'ado madax bannaan. labadan tusaale aan soo qaadan doono. In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on todobaatanadii guddi guud oo loo yaqaano guddiga Charge ama Charge Committee ayaa baaritaan ku sameeyay eedeymo loo soo jeediyay sirdoonka Mareykanka CIA oo ku saabsan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah iyo jebinta sharciga. guddigu wuxuu leeyahay barnaamij sir ah oo la yiraahdo MK Ultra kaasoo loogu talagalay in lagu sameeyo tijaabooyin dadweynaha iyagoo aan lagala tashan. yacni qofku waxa tijaabo lagu sameeyo isagoo ogeyn tijaabo lagu sameeyo si loo gaaro xakameyn buuxda oo lagu sameeyo maskaxda iyadoo la adeegsanayo farsamooyin kala duwan sida daawooyinka maskaxda saameeya, sixirka iyo habab kale oo saameyn ku yeelanaya maskaxda qofka. guddigu muusan awoodin inuu si buuxda u baaro faahfaahinta barnaamijka maadaama agaasimaha sirdoonka Mareykanka waqtigaas uu burburiyay inta badan dokumentiyada la xiriiray barnaamijka. waxa kaliya oo soo haray ama la helay 20 dokumenti oo wax badan naga fahamsiiyay xogaha khatarta ah ee laga ogaaday barnaamijkan. Hearings here in the United States in the mid-70s after it had been exposed. And during those hearings, the CIA finally admitted that this program existed. They admitted that it was probably not the right thing to do, but they feigned innocence. The story concerned another NSA program called PRISM. Documents showed how beginning in 2007, 9 internet companies were cooperating with the NSA. sidoo kale waxa jiray xogta uu daafray Edward Snowden ama uu soo qarxiyay Edward Snowden haddaan ku hadalno luqadda dambe oo ahaa sarkaal hore oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ee CIA. sirdoonka Mareykanka ayaa diyaariyay barnaamij sir ah oo iska kaashadeen 9 shirkadood oo waaweyn oo ku jira ama ka tirsan dhanka teknolojiyadda. ujeedada barnaamijkan ayaa ahaa in sirdoonku si qarsoodi ah ula socdo fariimaha emailka, wada sheekaysiyada, sawirada, fiidiyoyada, codadka, faylasha iyo xogta buuxda ee dadweynaha iyagoo aan ogeyn. shirkadaha xogta siinayna waa 9 shirkadood oo dhanka teknolojiyadda iyo miidiyaha ugu waaweyn. waxaana ka mid ah Google, Facebook, YouTube, Apple, Skype, Yahoo iyo qaar kale oo aan Soomaalida laga dhex aqoon laakiin Mareykanka caan ka ahaa.
Elon Muskina waa kan isagoo ka sheekeynaya in markii uu Twitter iibsaday meeshu ahayd daar yacni nimankan inay meesha dhex degnaayeenba. The degree to which various government agencies had effectively had full access to everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. Would that include people's DMs? Yes. Yes, because the DMs are not encrypted. falalkan iyo kuwa kaleba waa kuwo aanay ogeyn maxkamadda iyo madaxweynaha midnoona waayo markii la weydiiyey qaarkood la soo qabtay maxkamadda la keenay intuu waxay yiraahdeen waxba kama aanan ogeyn taasi miyaanay ka dhignayn ama caddayn u ahayn in cid kale oo aan ahayn kuwan hor jooga dowladda ay naqaano ay maamulayaan oo ay haystaan saadateed ayuu Trump erigan ugu soo celceliyay isagoo leh wan masaxaya nimanka meesha iska digay arinkana waxaanu si wacan uga hadli doonaa riwaayadda Al-Qaadimuun ee jidka ku soo jirta. Dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. To expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. We will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. qodobka labaad Trump iyo Kamala. Trump wuxuu sheegay in haddii doorashada maanta dhacaysa uu ku soo baxo iyo haddii uu ku hadhaba ay tahay markii soo dambeysay oo dadka hor imanayo dadka ugu caansan oo liisa taageeraya ama online waxa kamid ah Elon Musk oo ah maalqabeenka ugu hodansan dunida inta aynu naqaano yaan Undertaker-kii musaaracada sidoo kale Trump wuxuu ballan qaaday inuu dagaalka Ukraine hal maalin ku soo xidhi doono taasoo xusuusin say uga go'an tahay inuu dagaalkaasi soo gabagabeeyo halka Kamala ay sheegtay in Ukraine ay taageeri doonto aanad fahansantay waxay taas ka dhigan tahay balse dhanka Gaza hadaan eegno mid kastoo labadooda kamid ahi ma sheegin warcad iska dhaafina warcad sheegaan mid kastoo ay kamid ah wuxuu u ordayaa sida uu raali gelinayo Yahuuda Kamala Harris dadka caanka iyadoo online waxa kamid ah Bill Gates iyo fanaanada caanka ee Taylor Swift qodobka ku xiga ama ugu muhiimsan wana dambeeya waa qaab doorashada Mareykanka oo aan kar waqaab yar madax wareer ah balse intaan ugu gudagelin ay si guud uga waran nidaamka maamulka Mareykanka nidaamka maamulka Mareykanku waa mid federaal jamhuuri ah awooduna waxay u kala qaybsan tahay saddex laamood oo kala ah kow Congress-ka oo ah laanta sharci dejinta taasoo ka kooban laba aqal oo kala aqalka sare ee Senate-ka iyo kan hoose ee wakiilada labo ama laanta labaad waa madaxweynaha oo ah laanta fulinta waxaana madaxweynaha iyo wasiiradiisu mas'uul ka yihiin hirgelinta sharciyada iyo maamulka dalka qodobka saddexaad ama laanta saddexaad oo maxkamadaha federaalka oo ah laanta garsoorka mas'uulna ka ah xaqiijinta in sharciyadu waafaqsan yihiin dastuurka iyo in cadaaladda la fuliyo nidaamkana wuxuu suurto gelinayaa in awoodda la isu dheelitiro iyadoo laan kastaaba ay laanta kale la xisaabtami karto si aan awood maroorsi u dhicin aynu nimaadno axsaabta siyaasiga waxa jira laba xisbi oo waaweyn oo kala xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga ama se dadka qaar jecel yihiin xisbiga maroodiga iyo xisbiga dameerka xisbiga jamhuuriga waxa la aasaasay 1854 ama 1854 waana xisbi siyaasiyiin ay kamid yihiin in la yareeyo soo galootiga waana ta keentay inuu Trump dhiso darbiga laga soo boodo oo kuwa Soomaalidu isku dacaydiyay darbi ka soo bood baata sidoo kale waa xisbi ku ololaya horumarinta militariga iyo cuuda difaaca dalka yacni waa xisbi u roon ciidanka waana sababta ay dad badan u taageerayaan Trump iyagoo leh wuxuu la soo baxayaa ciidamada jooga wadamada muslimiinta oo Soomaaliya kamid tahay maroodiguna wuxuu u taagan yahay ama astaantoodu waxay u taagan tahay deganaanshiyo iyo awood madaxdii ugu caansan ee xisbiga ka soo baxdeen waxaa kamid ah Abraham Lincoln George Bush Dassan iyo Trump dhanka kale xisbiga dimuqraadigu uu ka qadimsan yahay jamhuuriga oo waxa isaga la yeelay ama la aasaasay 1828 waxaana kamid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee uu ku ololayo soo dhaweynta qaxootiga iyo soo galootiga maybe in tan ay wacanteen oo codayna Soomaaliya laakiin balanayn waxyaabo kale uu ku ololayo taageerada bidixlayaasha iska fahmiisaan iyo kor u qaadista cashuuraha
astaantooda Ameerikuna waxay u taagan tahay dulqaad, adkaysi iyo u nuglanaanta shacabka, waliba shacabka fuqarada ah. madaxdii ugu caansan ee ka soo baxdeen waxaa ka mid ah Barack Obama, Kennedy iyo Clinton. ogsanoona intani aanay ka dhignayn inaanay xisbiya kala jirin, aanay xisbiya kala ka shaqeyn Mareykanka. way jiraan laakiin inagu baan maqlin, waa xisbiya iska daciifa. qodobkeena u dambeeyana waa sidee ay doorashadu u dhacdaa. qodobkeena u dambeeya ee barnaamijku soo xirno wuxuu yahay qaabka doorashadu u dhacda. waa nidaam u baahan inaad yara fahanto, yacni waa nidaam xataa in badan oo ka mid dadka degan ama u dhasha Mareykanku aanay fahansanayn. nidaamka codbixinta madaxweynaha Mareykanku wuxuu dhacaa 4 sano hal mar. سلسلة هو رسالة نوفمبر شعب مريكان كوحة ودران عد بحينتا، لكن عدكو 6 ومسيا مشرحين تا وانت عددك عد بحياش الله سوقيو الله تريو لقو مقو آميو مدحوينها عصب سيدان ايو حدعان dadku waxay u baxaan inay doortaan wakiilo ka socda guddiga doorashada. wakiiladaas ayaa dooranaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. yacni dadku ma dooranay, dadku toos ma dooranaya madaxweynaha cusub, laakiin wakiiladaas ayaa dooranaya. Mareykanku wuxuu ka kooban yahay 50 gobol, mid kasta oo kamid ahina wuxuu leeyahay tiro wakiil ah oo cayiman oo ku jira guddiga doorashada. tirada wakiiladu waxay ku xidhan tahay tirada dadka degan gobolkaas, oo markasta oo tirada dadka gobolka degan ay badato waa markasta uu helo tiro wakiil ah oo badan. tusaale ahaan California waxay leedahay 55 wakiil oo guddiga doorashada ah, sababtoo ah dadka ku nool California waa 3 milyan, laakiin gobolka Alaska wuxuu leeyahay 3 wakiil oo kaliya ta, sababtoo ah dadka deegaanka u ah gobolkaasi ay dhan yihiin 700,000. amar tusaale ku dhiibay sanad wareerin. tusaale ahaan California waxay leedahay 55 wakiil, sax horaan soo sheegay. codbixiyaasha Mareykanka ayaa codeynaya ama u codeynaya wakiiladooda. haddii tirada codbixiyaasha u codeysay Kamala ee gobolkaas ay ka badan tahay kuwa u codeeyay Trump, Kamala ay ku guuleysan doonta gobolkaas oo wada qaadan doonta 55 codba. sidaas darteed waxay heli doontaa 55 cod oo ka yimi wakiilada, maaha shacabka. meeshan sir weyn baa ku jirta. ma suurtagal baa in mid ka mid ah wakiilada gobolka ee ka tirsan guddiga doorashada uu ka leexdo go'aanka shacabka oo uu codeeyo musharaxan ahayn kii lagu ogaay codka loogu dhiibay? jawaabtu waa haa. marka qaar waxa dhacda in wakiilkii uu bedelo xisbigii lagu ogaa oo hadhow doorashada dambe ay dhacdo 17 bisha 12 ee iyagu ay codeeyaan uu doorto musharaxan ahayn kii codka loogu dhiibay. waxaan loo yaqaanaa qofka noocaas ama wakiilka noocaas wakiilka khaa'inka ah. laakiin sharci ahaan waa la ogoliyay, yani wax dhibaa kaga imanaysa ma jirto, laakiin qasbiyan shacabkii codka u dhiibay iyo kii codka loogu dhiibay labadu waa nacaya. halkan u yar fiirsada. waxa dhici karta in musharax dhacay oo ku dhacay codkii wakiilada ee guddiga doorashada uu kaga sareeyay codka dadweynaha musharaxii soo baxay. waa weli soo maaha. haddaba su'aashu waxa weeyaan sabab ay san u sameeyeen, yani wayna xikmad jirtaa waxaan ka dambaysa. waxa jira gobollo daacad u ah labada xisbi. gobollada jamhuuriga ahi waxay mar walba u codeynayaan wax kastoo dhaca xisbiga jamhuuriga, xitaa haddii ay yiraahdaan dameerkan u codeey, dameerkaas ay u codeynayaan. halkaas sidoo kale jiraan gobollo dimuqraadi ah oo daacad 100% u ah xisbiga dimuqraadiga, taasoo ka dhigan wax kastoo la hor keeno oo xisbiga dimuqraadigu wato inay u codeynayaan wuxuu doona ahaade. tanna waa ta keentay in musharaxiintu aanay iskuba hawlin inay ka ololayaan gobollada og yihiin inaan codba u oolin, sidoo kale aanay ka ololayn gobollada og yihiin in codka yaalla ayagun leeyihiin. si cudurkan loo daaweeyo ayaa fikradan la keenay. wax wanaagsan soo maaha. fikradda midhaheedana waxaa ka mid ahaa in 2008 Obama looga codeeyay gobollo jamhuuri ah sida Indiana iyo Florida. ugu dambeyntii waxaa jira 7 gobol oo jaangooya madaxweynaha mustaqbalka. waa 7 gobol ay ka dhacaan ololayaasha ugu waaweyn ama lagu loolamo. waxaa loo yaqaanaa swing states. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.